shirkani laba iyo labaatanaad ee loogu magac daray African Oil Week ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika waxaana looga hadlayay sidii looga soo saari lahaa shidaalka dhex yaala qaaradda Afrika waxaana dhanka Soomaaliya uga soo qayb galay wasiirka shidaalka iyo tamarta maxamed muqtaar maruu TV-ga Universal uu la hadlayay ayaa waxa uu sharaxay faa'iidada ugu jirto dawladda Soomaaliya madana wasiir kulankan aad ka soo qayb gasheen maanta maxuu ku saabsanaa kulankani waxa la yiraahdaa kulankii asbuuca shidaalka Afrika waa kii 22aad waa mid sanadkiiba mar la qabto oo lagu casumo dhammaan dadka daneeya arrimaha shidaalka wafuud joogto waxay leeyahay 2000 sanadkii hore waxa ka soo qeyshay 1600 delegates ah ama wafuud ah oo kala yimaada 6 qaardood sanadkan laakiin ilaa 2000 ayaa imaaday arrimaha looga hadlayna waa soo saaridda iyo ka faa'iideysiga kheyraadka ku jira Afrika ayaa la soo halkan lagu yimid marka laga fiiriyo dhanka Soomaaliya maadaama wadamo badan oo Afrikaan ay joogaan halkan iyo company aad u weyn faa'iido ugu jirta Soomaaliya maxay tahay sidaan la socono Soomaaliya waa wadan leh kheyraad dhammaan wadamada ku xeeran Soomaaliya sida Ethiopia, Kenya, Tanzania, Mozambique, Uganda dhammaan shidaal ayaa laga soo saaray Soomaaliyana waxay ka soo baxday colaad muddo dheer qaadanaysa waxa u baahan tahay horumar dhaqaale sida kaliya horumar dhaqaale ku gaari karto waxay tahay in kheyraadka Ilaahay sameeyay inuu ka faa'iideysto dawladda Soomaaliyeed waxa ka go'an Soomaaliya inaysan mardama ku tiirsanaan macaawina ay isticmaasho kheyraadka Ilaahay si halkan waxaan u joognaa marka inaan shirkadaha caalamiga u sheegno Soomaaliya waxay leedahay aan ka wada hadalno qaabka ugu faa'iideysan lahayn wasiirka ayaa waxa lagu wadaa in khudbad uu ka jeediyo halkaasi waxa uu diiradda ku saari doonaa shidaalka badan ee ku jira Soomaaliya xassankaafi maxamed shire telefishinka caalamiga Universal